daawadayaal dadka Soomaaliyeed waxa ay soo mareen muddo dheer dhibaatooyin aan kala joogsi lahayn tan iyo markii dawladii dhexe ee Soomaaliya ay burburtay. haddaba dhibaatooyinkaas muddadii ay jireen waxaa jiray shakhsiyaad iyagu taariikhda meel fiican ka galay iyo waliba shakhsiyaad taariikhda meel xun ka galay. haddaba taariikhda waqtigaas la soo maray waxay xusi doontaa qof walba oo Soomaaliyeed oo muwaadiniinba ay ku jirtay isla markaana ka qayb qaatay dhibaatooyinkii dadka Soomaaliyeed ay soo mareen. barnaamijkeenan waxaa dhinacayga bidix fadhida Dr. Rayso Xawa Cabdi Dhiblaawe oo iyadu ah haweenka farakutiriska ah ee taariikhda Soomaaliyeed safka hore kaga jira. Dr. Rayso Xawa taariikhdeeda ma aha mid caawa halkan ay ku soo koobi karno, waxay in badan nafteeda u hurtay muddo ka badan 30 sano in ay dadka Soomaaliyeed la qaadato waqtiyadii farxadda iyo waliba naxdinta lahaa. Dr. Rayso Xawa ku soo dhawow Somali Channel. aad baad u mahadsantahay. bismillaahi raxmaani raxiim. Soomaaliya dhibaatada ay soo martay dunidana way ogtahay, Soomaalina way ogtahay. taariikhdana ma dhimato, qofka dhinta. waad mahadsantahay. intayna barnaamijka guda gelin bal marka hore horta warbixin kooban waxaad naga siisaa takhasuskaaga iyo waliba waxbarashadaadii jaamacadda heerka jaamacadeed meesha aad ku soo qaadatay iyo heerarkii waxbarasho ee aad soo qaadatay. iskuulka elementary-ga ee waxaan ku qaatay iskuul la dhihi jiray Xamar Jajab ee Xamara. intermediate-ka waxaan uga baxay iskoola commercial, iskool dhihi jiray waqtigaasi waxaan uga dhigi jiray Talyaaniga ayuu yahay luqadii guud oo halkaas looga hadlayay. dibadeedna waxaan galay iskoola media superiore iyo iskool raash oo waqtigaas culture-ka ruushka uu furay. in markaan ku jiray iskoolka ruushka waxaan ka helay scholarship oo ay siiyeen haweenkii Soviet Union waqtigaas. halkaasi waxaan ku maqnaay magaalada dawladda Ukraine 7 sano. waxaan ka soo laabtay 71 bishii June 29-keedii. 72 waxaan ka bilaabay shaqada Digfaar oo waqtigaas isbitaalka Digfaar oo isbitaalka ugu weynaayahay waqtigaas Soomaalida. haweenka Soomaaliyeed ee haweenka xisaabsan waxay ahaayeen wax yar oo farakutirisa. aniga iyo gabar kale Maymuun Ismaaciil la dhihi jiray ayaa haweenka ahayn xagga dumarka. takhasuskaagii waxbarasho caafimaadka marka la yiraahdo qaybtabaad ka soo qaadatay caafimaadku maadaama uu farabadan yahay cudurrada haweenka iyo dhalmada. dibadeedna waxaan noqday assistant professor ee jaamacadda ummadda Soomaaliyeed qaybta dhakhtarnimada. dhakhaatiir badan oo ardaydeedii ahayd ayaa hadda meelo waaweyn haysata. sidii Boram oo kale waxaan uga tegay 7 dhakhtar oo isbitaallo ku leh howl macaana ka wada oo wanaagsan magaalada Boram iyo Soomaaliya oo dhanba. Minnesota inta waxaan uga tegay dhakhtar ardaygeygii ahay ee meelaha adduunka hadda ugu dhibka badan Minnesota dhexdeeda looga yeerto asaga u haasta Soomaalinimo, asagoo Soomaali oo qaxooti ah ayaa haddana wixii dhaco dhibaataysan isaga loo wacaa. marka waxay siiyaysaa taas farxad weyn iyo mataqaanaa I am very proud. wallaahi dad markaasi waxaan ahayn waqtigaas dadka cilmiga leh hawshana si fiican u qabta waxaa la dhihi jiray kaadir markaas soo baxay oo dalkoodii wax ka qabanayaan ahayn si daacadana ugu shaqeynayo oo hagar la'aan. kulligeena waan isku toosneen oo dalka dibadda markaan ka jirnay oo ahay waxaan ku riyoo jirnay dalkeeni markaan tagno inaan bedelno nolosha oo aan dhinaca fiican u bedelno. wax yar baan ilaa 16 dhakhtar camal ilaa 20 camal. habeenkiina waxaa la geli jiray waardiyo ilaa 500 sariir oo ah isbitaalka. 500 hal dhakhtar ayaa geli jiray habeenkii waardiyada. hurdo ma jirin. qaybta indhaha, qaybta haweenka, qaybta caruurta, qaybta qalliinka, qaybta medicine interna hal dhakhtar ku jiray. dhakhaatiirtii xoogaa markaas sanooyin naga horeeyeen markii aan wax culus la kulanno ayaan u yeeri jirnay on call wax la yiraahdo geli jireen.
shaqo badan aan ka qabanay halkaas Soomaali oo badan ayaan u shaqeynay oo u baahneed markaas shaqadii socotay hatta mataqaanay gobolada wixii ka dhaco ambulance inta nagula qaadan meesha ugu tagi jirtay sida balcad oo kale meelaha noo dhow Jowhar oo kale inta sablaale iyo meelihii la dejinayay dadkii waxootiyada la dejinayay aad baan u shaqeey jirnay si daacad ah u shaqeey jirnay Soomaali oo dhan ayna injineer ku jireen dhaqaatiirtii ku jireen kuwa biyaha ku jireen wixiiba markaas kaadir ahaayo markaas cilmi soo dhameeyay way wada shaqeey jireen si isku duuban u shaqeey jirnay oo Soomaalinimo ah dal qof la arko wax soo bartana dalka gudihiisa ku soo noqon jireen barnaamijka in loo baxa ceebeyba nala heedanaga dalkeeni baan jecleen inaan wax u qabano oo dunida gaarsiino meeshay maraysa ayuu ahay programkeena Dr. Iso waqti waxa la galay ka bedelan waqtiga fiican ee iminka aad xustay oo inuu aran karno waa xasuus lama ilaawana waxa loo gudbay 91 iyo waqti dadka Soomaaliyeed ay galeen taariikh mugdiya waxaad adana isbitaal adigu gacantaada ku dhistay aad ka leeyahay inta u dhaxaysa la foolay afkooy fikradaas goorma kugu dhalatay maxaa kugu dhaliyay inaad halkaas isbitaal ka dhisto wallahi Soomaali sidaan oo ahayn oo wada soconay ayaa waxa dhacday in ay hooshii sida toosan dariiq wanaagsan ugu socotay ay ka weecatay markay weecatayna waxay noqotay isbitaaladii aan jecleen oo ku faani jirnay sawirahooda dunida markaan tagno ileen arday markaa tahay nin walba sawirka guri dalkiisa uu ku tusinaya dalkayga sarahaana ku yaalo kulay isbitaalkayga waa kana adna way midaad ku faantay inaad leedahay oo tusiso way wixii aan tusinaynay dadka ayaa qayb u batay marka waxay noqotay inaan isbitaaladii dadka ardayda aan wax u qoraayo practical galabtii ku geeyo laakiin shaqadeeda tooska ah hal qol aan ka bilaabay meeshan hadda deganahay oo 400 oo sariir noqotay halkaas qol ayaan ku shaqeey jiray dadka masaakiinta oo baadiyaha degan oo aan jidkana haysan habeenkii markay fooshaan ama dhaawac gaaro gaari dameer la igu keeni jiray ayagoo la wada saq dhexe halkaas aan wax ugu qaban jirnay subaxdiina jaamacadda tagay darsiga soo bixinay markay tahay 10 saacna waxaan geynay isbitaalka si ay practice ugu qaataan ama subaxdii mararkii aan chance leeyahay dunidii way si halawday dadkii Soomaaliyeed isnacay jaceelkii waa yaraaday naceeb baa abuurmay saaxiibtinimadii ma aanan aqeenin anaga waxaan aqaanaa wiil walaalkay aan u haastayo 25 sano waxna isa soo baran Soomaaliya isla joognay markii mushkilada dhacday arka asagoo alaabta xirxiranayo qabiil waligaan isma weydiin markaas aan walaalo maxaa u bixaysaa aniga inta jooga kaaliimo ilaan qabiil baa la isku eriyay anigu ma boogiba hawl kala bilaabatay aniga la soconin dadkii uu kala guuray qabiil ahaan buu kala guuray dhibaato waaweyn baa dhacday Soomaalidii dhaxdeedii dadkii isla dhashay baa isdilay abtiba wiilkiisii dilay wiilku abtigu ahaay naagihii baa waxay noqdeen kuwa aad dibki ugu dhacay abtiga wiilkeedii ninkeedii aabaheed walaalkeed ayaa isdilay waxay isku dilayaan lama yaqaan markaas habka ay isku dilayaan ma la kasinba Dr. Saxaw sagaashan koodii wixii ka dambeeyay dadka Soomaaliyeed waxay bilaabeen qax iyo inay u qaxaan wadamada dariska laakiin waxa jirtay barakac isagu ka jiray gudaha Soomaaliya gaar ahaan markaynaano Hawa Cabdi Foundation kaamka Hawa Cabdi oo kale sidee buu ka abuurmay sidee baa tirada dadka inta leegi ay isugu soo sheegeen inay kaamkaas yimaadaan markii hore horta saaxiib baad leedahay oo iskuulka aad la soo dhigatay elementary ama intermediate ama secondary haddana jaamacadii baad tagtay oo waxbaad ka soo barato saaxiib baad ku yeelatay haddana isbitaal baad ka shaqeynayso dhaqaatiir iyo kolleegi baad ku leedahay jaamacad baad dhigtay oo haddana macallimiin iyo arday iyo waxbaad xiriir badan la yeelatay dawladii Soomaaliyeed inta ka shaqeeyayso isku kaadirka eedeen oo isla timaadeen waad istaqaanay dhibaatada markay dhacday dad badan baa ka xishooday inuu qabiil ku dagaalamo uu isaga soo dhaxbaxay xamar
xamar waxaa la bilaabay habeenihii in guryaha la iskugu dhaco oo nimankii qaarkood lala baxo ama lagu dilaba meeshoodii. dadkii markay kasoo baxeen anigu waxaan u jiray meesha ugu dhow ay ku nasa karaan 20 kilomitir aan u jiray Mogadishu. markay ii yimaadeen meeshii nafsadii ku hay waayeen caruurtii bay agteeda keensadeen. caruurtii baan u qabtay, caruurtii baa meesha nabadgelyo ku heshay, daryeel caafimaad bay heshay. waqtigaas weli raashin baa guriga ay yimid dalka oo dadkii weli u qoynayeen mushahara iyo waxbay qaadanayeen. dhibaatadii baa sii korortay, mushaharadii baa banuugtii lacagta ku jirtay oo ummadda lacagta dhigatay ayaa baabuuro gadaal laga gashtay. lacagtiiba oo markii kun aheedoo lasoo saaray ayaa ina tareeyo lagu rartay, horteedaa la marsiiyey. wixii alaab ahaayoo wanaagsanayo Soomaaliya yiilena waa la rartay. qaybtii koobaad baa raratay oo bixaysa. intii bixi karta way baxday, in kala soo baxday haddana oo ku jiri weysa xamar. kuwa sii daba joogaa haddana ka daba yimid. dadkii intii markaas haysatay waxay ku baxdo ayaa baabuur iyo transport iska bixisay. intii masaakiinta eedan waxba haysanina halkoodii bay ku hareen oo anay ila joogeen. marka la xuso oo xusid waxaa mudan waliba in kaamka Xawa Cabdi wuxuu ka badbaaday dhibaatooyin badan oo ay ugu horeysay qabqablayaashii, ay ugu horeysay ururadii siyaasadeed iyagu waxa weeye wada esta samaystay ee Soomaaliya oo iyaguna mar wadada xaq u sii dhaafay xaq u soo dhaafay. waxay ahayd kaam isagoo Soomaalinimo ka muuqato isla markaana qof walba ka xishoonayay in uu gudihiisa galaama oo bilaa la qaysto. aragtida inta leeg sida u dareemaysa wallaahi habeenihii baa guriga la iskugu dhici jiray. qabiil ahaan baa habeenkii inta guriga loogu dhaca dadka laga qaylisii jiro lagu dili jiray meeshooda. aniga marka waxaan ku dadaalay wixii qabiil la dhahayba inaan ka dheeraado. dadka oo kaamkayga soo galana aysan qabiilba ku hadlin. Soomaalinimo inay iskaalmeeyaan, cunada intay haystaan inay isla cunaan, inay isla qoslaan, inay sheekaystaan. waxaan ka xarimo wax qabiil la yiraahdo in looga hadlo kaam. haddana raggii markaas shaqayn jiray oo baawarka lahaayo lacagaha jeebka ku watay markay waayeen ay frustraata noqdeen. haweenkii ayay mataqaanaayay xoogaay ku adkeeyeen noloshii. waxay bilaabeen in haweenkii la garaaco habeenkii oo haween laga qaylisiiyo. sharci kalaan soo rognay haddana inuu ninaha haweenkiis inuu naag dili karin markii jaa uu og yahay inuu xoog badan yahay. muxuu tusinayaa wuxuu tusiyaa ma male ma ogsan shuruucda cusub ee marka in meesha aan ku badbaadinay qabiilna inaan looga hadlin, haweenkana inaan la garaacin. labadii mashruuc way noo hargashay. qofkii nagu xadgudbana waxaan niri meeshaan meel dawladeed ma aha, waa meel qof gaar ahaaneed leeyahay. waxaana rabnaa nabad inaan ku wada noolaano. maxaa dhacay qabiiladii way kala xoog badan yihiin. kuwa markii wax laga hadlayay dadkooda intuu wacdaanayba technical car soo qaadanayaan, markaasay dadkii ka laynayaan. marka si uuna qabiil u dhicin ayaan arrintaas u soo jeedinay. alxamdulillah waa ku guuleysanay. noolama soo gelin dhibaatooyinkii dhacayo oo qabiilka ahay urad ma soo gelin. dad badan waan dareemi karnaa waqtigaas qaxoontigu ahaa kaamkaaga. dadka waxay u baahnayeen adeeg caafimaad, waxay u baahnayeen adeeg biyo, waxay u baahnayeen adeeg raashin. sidaba nolosha ay uga bilaabatay kaamkaas? biyo ma haysano horta, ceel nooma qodneen. tractor aan leenahay ayaa 18 foosta mar walbaba inta tago ceelasha kasoo qaadi jiro oo dadka loo qaybi jiro caag jirigaano lagu sii jiro. raashinkiina waa ka dhamaaday dalka. si xun anagoo ku nool ayaa xoogaay anaga badar nooga soo go'ay beerta masage waan u qaybinay. ma la wada sii karin inta dad oo joogtay. qayb maalin baa cunada siiyayna, qaybtan qorax ka soo bax jirta maantaan siiyayna, qorax ku dhacna beriyaan siinayna si ayna hal beri gaajo u dhiman maayaan. dhimashadii iyo gaajadii way sii badatay. waxay ku sii badatay khaas ahaan Baydhabo iyo dadka Alta-Juba deganaa way soo lugeeyeen, jidkay iskaga dhidhinteen.
barar iyo cagabarar iyo walxbaa ka dhacay aniga marka waxaan u xil saarnay afgooya inta ka bilaabato ilaa number 3 dishi wuxuu ku dhaco oo dhinto ayagoo socdo raashin raadiha ay iska dhacayaan inaan ka soo qaado oon arkay ugu duubo xoogay markaan dhibaatada weyn la kulanay waxaan noo yimid ICRC dadka xamar isku dagaalayay waxay ahaayeen qaar aan cabsanin iyo qaar nolol fiican ku jiray oo dhibaato rabin oo isla markiiba ka soo baxay marka waxay naqatay dadkii soo baxay waxaad arkaysa baabuurtiyo shaagagii intay ka dhamaadeen birtii ku soconaysa qarraacdayso oo laamigii naf racre xataa qof ay ayaga wadaan oo familkooda hadday ka dhacdo muu joogsanay way soconayeen waxaanu ku guda jirnay gurmadka iyo waliba asaaskii Xawa Cabdi Foundation ama kaamka Xawa Cabdi oo ay boqolaal qoys ku badbaadeen markii ugu badneed imise qoys ayaa meesha aad ku tira koobteen oo nolol ku haystay bariyahaas hore ilaa 460 qoys bay ahaayeen oo waxay ku baxaan waayo meesha isaga haray qaasaan qoladii deganeed Cabdulcasiis deganeed kaamba maxaaro si u soo guureen agtayday degeen ilaa haddana waa degan yihiin guri ay ku noqdaan mala guriyoodii waa la fiiqday waana asaaska la bixiyay markii ugu badneed waxay ahayd markii Itoobiyaanka uu yimid 2007 waxaa soo gashay 15,000 oo qoys markii min 6 laga soo qaado Soomaaliya oo ogtaa qoyskeedu uu ballaaran yahay 6 markii laga soo qaado waxay noqdeen 9,000 oo qof laakiin intii ka horeysay waxaan helnay ceela ICRC noo qoday raashin wayna sii jirtay waqtigaas dadka nagu soo gato dhibaatada ay jirtayna WFP raashin sii jirtay biyana waa haysanay raashin WFP aan siinaysay dawana waxaan ka helnay MSF Switzerland oo iyada markaas nala soo degtay ilmihii nafaqa darada ku bilaabatay oo malnutrition ka noqday waxaa kaloo noo cadaatay waqtigaas 92 cunugii malnutrition ka ahaa oo ilaahay nala garab galayo badbaaday 20 iyo xoogay sano markuu gaaray aan wacnay case study waay cunugii physically uma korin mentally ma korin marka nafaqa darada waxaad arkaysaa inay physically and mentally labadaba waxyeeleynayso waxaan noo cadaatay in xataa mataqaanaa caqligiisa intii la rabay bugiisa uusan gaaraynin cunuga haddii nafaqo fiican helin markuu koraayo oo jirka iyo maskaxdaba ay isla koraan haddaba waxaa jirtay madax sarsare oo iyo madaxweynayaal waliba ugu horeeyay George W Bush oo 1993 yimid soo kala Budros Ghali Colin Powell oo isaguna ahaa wasiirka difaaca waqtigaas Mareykanka in kulli meesha hadda laga xuso waxay ahayd kaamka Xawa Cabdi oo si toos ah ay u yimaadeen markaasna ay u arkayeen iftiinka kaliya ee ka jiray koonfurta Soomaaliya sidee idinku macnihii aad arrinkaasi u arkayseen waqtigaas aadka u daran iyo waliba madaxda waqtigaas soo boqotay wallahi aniga qof ahaan waxaan islahay madaxweynihii Mareykanka Soomaaliya tagay wax weyn ilaahay Soomaaliya oo tagay madaxweyne Mareykan ahaa ila weynaa laakiin maalintii kale inta waxaa yimid guddi American Marines waxayna yiraahdeen madaxweynaha uu imanaya halkaan uu ku soo deganaya waana diyaar garowda wadna marisa meeshii aad mari lahayd oo tusi lahayd kaamka ilaa 2 sitimaan waxaan marinay jidkii aan ka bixin lahayn aniga iyo madaxweynaha oo aan dadku ku tusi lahayd dhibaataysan muddo markaan sidaas ku sii soconay maalintii kale maalintii Khamiistaay 8 saac 2 duhurnimo ay tahay 2 PM waxaa soo degatay horta ciidan badan baa subaxdii yimid oo meesha dhan baaritaan ku sameynay 2 iyo 5 daqiiqo markay ahaydna
waxaa soo degatay helicopterkii waday madaxweyne bush. maalintaas waxaa dagaal ka socday saf ku jiray oo sugayay gurubkii ciidiid ilaa laamiga ilaa number 4 ayay caleemo qoyan soo dhaweynayeen. cali mahdina dhinaciisa waa laga sugayay, laakiin baddu ka soo duulay goofkaygu ku soo degtay. mushkiladii jirtayna markaas waxay ICRC waday isaga. ICRC waxay ka mas'uuliyad nabadgelyada. habeenkaasna dagaal weyn ah wuxuu ka socday labadaas qolo oo xamar kala goosatay. dadka cagaarna ay samaysteen dhexdooda dagaal ka socday. marka way ka soo bootiyeen goofkaygu ku soo dejiyeen. waan soo dhaweynay dad gaajaysan oo wada bararay oo teendooyin ku jiro sakaraad ayaa joogay. qaar badan oo cunno loo karinayo cunnada loo qaybinayo ayaa joogay. ICRC markaas kaamka support gareynaysay raashin iyo biyaba. ceelka markaas dheernoo la qoday ka bacdi wuxuu uga duwanay dadkii kaloo yimid. kaamka dadka ku jiro bararan oo hadda depressed qofka markii ay jiran tahay maskaxdeeda iyo wajigeedaba waxaa ka muuqato culays iyo dhibaato. wuu u galay, waa gacan qaaday. hi, how are you? Are you okay? waa u qoslay. ayagana way u qoslayeen. maalintii waxay ahayd 31 December oo habeenkii 6 saac ay naganaysay New Yearka 1993. waxay bishii kowdeedii si fiican oo meesha u maray. meel sloogano badan aan ku xirnay. maxaa dhacay markaas? badana nooma furneen, boortada badda aeroboortkana nooma furneen. raashinba meel nagala soo geliyay ma lahayn. ICRC dibadaha iyo marka iyo waxbay inagu qoodi jirtay. wax weyn ay badbaadisay waqtigaas. ICRC way ku mahadsan yihiin. dad badan ay badbaadisay. 4 maalintay ahaydna waxaa noo yimid Dr. Scali oo markaas ahaa xogeyaha guud ee qaramada midoobay. aan soo dhaweynaa isagana. laakiin sidoo ninkan oo bushin lahaay dadka masaakiinta oo xaaladda hoos u ogaanay hoosta uga galay u sheekeynay laan kastoo wax banaanku ka salaamay. waana dhaafay isagana. muddo kadibna waxaa noo yimid Colin Powell oo ahaa markaas xogeyaha arrimaha difaaca. nin furfuran oo ahay oo furfuran oo qoslaya dadka madow markuu arkay iyo dadka banaanka meesha jooga iyo dadka masaakiinta ee kulli la sheekeysanayo oo ahay nin furfuran oo firfircoon oo dhalinyarnimo ka muuqato ahay. waan soo dhaweynay. waxaan hayna way nagu amaaneen, laakiin ballan qaadi weyn anagana warqado ballan qaadi ma aanu u qorno, ma aanu dhiibin. ayagana nooma ayna sameeyeen. markaas waxaa jiray iskuul weyn oo American Marines uu dhigay caruurta oo noo dhisay oo caruurta ay noo dhigan jireen. hada caruurta waxay ahayd in la maaweeliyo. okay, si guud shaqaalaha in ugu hawlgalaya in kaamka Xawa Cabdi way farabadnaa karaan xagga caafimaadka, in security-gi, in macallimiintii wax baraysay, in dhammaan shaqaalaha soo dhanay midika markaa jeebkiina macnaheedu ka maamulayay mise si voluntary ba macnaheedu waxa weeye uu shaqeynay ururku. badana voluntary u shaqeynayeen, laakiin waxaan isku day jirnay oo ICRC naga kaalmay jirtay inaan siino food for work. maxaa dhacay ilaa 3 May horta waxay karinayeen bariiska dadka la siinayo oo foostooyin baan intaan kala jarno oo u yeelno gacmo ayaa 20 loor lagu kari jiray maalintii. 20kaas loor mararka qaarkood yaraa jireen oo bariiskaas iyo saliidaas iyo digirtaasna waxaa dhiibi jirtay ICRC. haddii wax nooga soo haraan ama aan u sheegno inuu dadka shaqaalaha ay wax u baahan yahay cunadan oo qoday ku cunayaan kulleyba food for work-na waa la siinayaa. kuwa isbitaalkana badanaa waxay ahayn volunteer. in hadda intii dambe imisa qaybado kale lagu kordhiyay isbitaalka adeegyada uu qabto ama kaamka Xawa Cabdi oo dhan hadda hadinayno adeegyada bid'aadanimo hadda wali macnaheedu hawshu ay ka socoto in qaybaheeda hadda ka xusi kartaa. qaybo badan baa lagu kordhiyay. waxaa lagu kordhiyay qaybta caruurta pediatrician, qaybta nafaqa darrada ITFC,
waxaa lagu kordhiyay qaybta shubanka oo caruurta shubanka sanad walba waxaa ka dhaca outbreak oo shuban biyood ama cholera ka bilaacda Soomaaliya 100 sariiro oo dadkaas lagu daweeyo waa la sameeyay 80 sariiro dadka ilmaha nafaqada daran lagu sameeyo waa lagu daweeyo waa la sameeyay ilaa 70 sariir oo pediatrician waa la sameeyay hadda kulli macal emergency gooda oo 20 sariir waxay yihiin ilaa 400 sariir waay waqtigan dambe hadda waxa jiray in abaaro baan oo ku dhuftay in guud ahaan Soomaaliya gaar ahaan in koonfurta Soomaaliya dad badan waxay u soo qaxeen wadamada dariska ah in waxaan filayaa kulli culays badan wuxuu fuulay in kaamka Hawa Cabdi oo in badan looga bartay in dadku ay ku soo hirtaan waxa jirta deeqo kala duwan oo wadamada caalamka ay soo gaarsiiyaan magaalada Muqdisho oo aan wax weyn ka fogeyn in kaamka Hawa Cabdi in badan ma laga xusaa oo kaalmooyinkaasi soo gaaraan kaamka way soo gaaraan kaalmooyin kaas ahaan markaas ay abaarta soo dhawaatay oo dadkii caatanimada bilaabay anuu abiil baan adduunka u jeediyay abiilkii waxaan BBC-da baan anuu la hadlay BBC-dana waxay ila xiriirisay mataqaana UNHCR maad markaas u madaxeed waxaan irahay haddii hadda aan Soomaaliya wax laga qabanin asaan koonfurta Soomaaliya waxay ku soo noqonaysaa 92 dadkaas baran anaga maalintii waxaan duugi jirnay ilaa 50 qof baydhana waxaa laga duugi jiray 300 oo qof maalintii oo gaajo leh u dhimanayso sidoo kale bay ku soo noqon doontaa aan leeyahay hadana adduunka hadda naga soo gaarin waxay itiri leedeen ma imaan karo dadkii wax idin qabanayay baa dilaysaan waxaan niri dadkiina ha keeninay local NGO aan sameeynayna local NGO gaas waxaad noo soo qatirtaan noogu soo dhiiba adiga sidii baan ku guuleystay ilaahay uu nala garab galay raashinkii WFP local NGO inoo soo gudbisay waana ka badbaadnay waxa weeye 2007 shuban biyood xunna waa ku dhiftay ilmaha in nafaqo darro aad u adag waxayna ahayd markii Soomaaliya xamar ay ka soo wada baxday oo Etoobiyaanka oo galo qaraxa bilowday qoladan Etoobiyaanka is dagaalayeen taas waan ka badbaadnay waxa kale oo ku soo xigay hadda sanadku ahay 2000 iyo 2011 kana sidii oo kaleento ayaa dhibaato u dhacday daraas xuna dhacay oo waqtigaas koobaad xoolaa joogeen suuqa neef geel inta laga soo gadaa u qaybinaysa dadka masaakiinta oo maraqa ka siinaysa laakiin hadda marta 12kii xoolihii way dhamaadeen raashina ma jiro beerana lama tabcin sidoo kale aan u qaylinay qayladayna wax badan jawaab kama imaanin waan baxnay dibadaan aasanay Canada aan ka bilawnay qaylo haddii aan hadda la qabanin Soomaaliya way dhamaanaysaa niri Canada waxay naga ballan qaaday waxaan niri waa in jikooyin la furaa oo cunno dadka la siiyaa jidka intay soo socdaan ay dhacayaan marka intaan baydhaba iyo la gaarin iyo anaga agteena muddo badan meelo badan in laga furo waayo jikooyin si dadka loo hakiyo biyo iyo raashin iyo loo siiyo oo dhax ku dhicin Canada way naga ogolaatay 2 jiko meed 2 jikay noo soo ogolaatay oo halkii jikaba ay tahay 5 loor oo lagu karanayo 5 loor oo bariis maalinkii iyo biyo waxaan helnay oo kale hadana qolaan aad u soo shaqeeyno liira Amoud Foundation oo Boorama Amoud Foundation waxay sameysay jikooyin waxay ka furtay Baay iyo Bakool ilaa 10 jikay halkaas ka furtay annagana waxay noogu dartay 3 jikona annaga furnay ayagana 3 kale jikay noogu soo dareen 6 jiko ilaa 2 waa 8 jiko adiga 8 jiko mid caruurta tahay caruurta ayaa badal gaar ah inta loo sameeyo waxay cabi karaan mashaariic loo soo binaa nafaqaysan
marka sidii aan kusoo gudubnay alxamdulillah roobaaba ilaahay keenay waa ka badbaadinay iyadana weli daawadayaal waxaa daawanaysaan barnaamij gaar oo aanu waraysi kula yeelanayno doctoresa xawa cabdi oo iyadu ah shakhsi soomaaliyeed oo taariikhda soomaaliya si weyn uga dhex muuqda wax badanna soo qabtay dhawaana waxaa hadalhaynteedii ugu horreysay ay soo baxday in ay ku jirto liiska dadka qaadan doona shahaadada Nobel Peace Prize-ka oo ay noqon doonto arrin kale oo magaca Soomaaliyeed iyo sharafta Soomaaliyeed xawo ay la soo hoyato in arrinka hordhicisa maxaad akhbarkaysaa arinta Nobel Peace Prize-ka waan ku farxay waxaana ku farxay aniga kaligay ma ahane magaca Soomaaliyeed haddii uu ka dhex muuqanayo dawladaha waaweyn magacayga markii la sheego waxaa la sheegaya haddana meeshaan ka imid dhalashadeeda meeshaan ka imid la sheegaya marka guusha ma mid kaliga ii soo hoyatay ee Soomaaliya oo dhamay soo hoyatay waxaana rajaynaynaa inay noqoto mid hergasho insha Allah in gabagabadii barnaamijka ee ummadda Soomaaliyeed maxaad u jeedinahay maanta oo fursadan aad ka faa'iideysanaysaa fursadan waxaan uga faa'iideysanayaa Soomaaliya inay midowdo wax qabiil la yiraahdo iska dhaafto inay dhalinyarada u istaagto dalkooda inay wax u qabtaan 52 sano ayaan dawladnahay weli dalkeenana bakeeri lagama daranin oo ama shidaal ama gaas ama dahab ama uranium waa buuxa dalka oo guudahan yahay intii naga horeysay annagaba waan ilaalinay qof la arko soo company kasto inuu wax ka qabsado damco annagana xoogay afka noogu tirtiro waan iska diidnay dhalinyarada waxaanu sheegayaa ama dadka mataqaanaa maanta tabartay ku dambeysay caqliga iyo cilmigaba inay dalkooda ilaashadaan oo aan laga bililaqaysanin dawlado badan ay jiraan oo wax dalkooda ku jiray dad kala gatay oo dhalinyaradooda ama generationkooda aanan chance haysanin oo ay uga hadlaan ama ay kula gorgortamaan adduunyada Soomaaliya way haysataa wax la arkan way buuxan waana qani dalka korkiisa iyo xoolaha ayaa deeqa waxa gudaha ku jiro inay iska dhaafaan oo aan mataqaanaa kala go'aan ay joojiyaan maxaa dhacay kala go'a waxa weeye qaybiyo u tali markii la qaybinayo waxa loo dhiibaa mid loo tali karo oo gacanta lagu qaban karo dadka oo barwaaqadaas doonaya dalka ku dhex jirto iyo badahooda inay waxooda ilaashadaan isdeegsiyaan cilmi bartaan nabadoobaan ay haddana ceebkii la abuuri jiray 20 sano inta falaan tirtiraan ay jecel abuuraan iyo isku kalsooni aad iyo aad ma santahay daawadayaal intaas waxa noogu dhamaadey barnaamijka gaarka ah oo fursada aanu ku helnay doctoresa xawa cabdi diblaaw oo ah shakhsi Soomaaliyeed oo in badan oo Soomaaliyeena ay waliba xasuustaan in halgankii dheeraa ay ka soo qaadatay taariikhdii waqtigii dhibaatooyinku ay ka jireen wadanka Soomaaliya ilaa haddana u taagan in ay ka qayb qaadato dhibaatooyinka haysta dadka Soomaaliyeed sidii ay uga bixi lahaayeen barnaamijkan waxay soo jeedinayaan waa Ibrahim Maxamuud Jaamac inta aynu ku kulmi doono barnaamijka xiga waxaan kaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh